أديكوا إذا كلا قادم إذا العلماء هرمود إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أيضا فرح السنة يكون كان قيمها ضرر لو بلغ يوم دين إلهي مرشدين هي علماء قيمها ضرر تصالح إلوه حكمة ضرر كصبر قريصه أيدي صحابة وهرين إلهي بأمر مهدق يا سبحانه وتعالى استعوا لما ظهر بشهرين انت كذب waxaan baraarujin lahaa daayarta halkan fadhida iyo dadka waddanka ku nooliba inay nasiib leeyihiin. Hadda marka la eego caalamkaynu ku noolahay iyo caalam islaami way iska yar tahay cilmi sidan oo kale xalqadda loogu qaadanayo ama xorriyadda noocana loo haysto oo waliba bilaash lagu bixinayo dadka lala barayay oo waliba dhalinyaro inta la eegay ay u soo fadhiisanayaan way yar tahay baan isleeyahay. Hataa maanta haddaad dib ugu noqoto xaramaynkii xalqadaha lagu hayo iyo isha saaran iyo sida loo ilaalinayo waa arrin qofkii runtii xaadirin garanayo. taasi waa nicmooyinka ilaahay uu na weydiin doonaa bay ka mid tahay. waxaan kaloon xusi lahaa cilmigu sidaa culimaduba hore u sheegay khayr Allah siiyo nicmooyinka ilaahay uu bixiyo waa kuwa ugu qaalisan. waxaa daliilo ah maanta qofka ugu jaahilsan haddaad tidhaahdo jaahil yahow wuu xanaaqaya isagoo wax uga garanayninba. aqoonta cid waliba way dugsanaysaa, jahligana cid waliba way ka carraysa walo qofku jaahil ba ha ahaado. hadalku kollay waa soo daalay xikmad badanna waa layni yidhi, laakiin waxaan isleeyahay maanta bilowgan dowladda sidan oo kale khayr Allah siiye culimada soo aroora ay ku bilaabeen iyada laftigeeda 10 waxaa la doonayaa 10 inaad ka qaadataan iyo cibro xikaayooyinka iyo xikmadaha laydiin sheegay. waxay u taagan tahay xiise gelin warkaa laydiin sheegaya iyo tijaabooyinka iyo akhbaarta culimadu waa inaad xiise ku heshaan oo dhiirigelin iyo tarqiib ay idiin noqoto. dowladahan runtii guryahan dambe la qabanayo waxaa kolley u sababa himada oo yaro daciiftay oo dadka lagu xiise gelinayo iyo iyadoo la doonayo maadaama waqtigii dheera dadka ay ka cararayaan in loo soo ururiyo waqti kooban cilmi ballaaran. marka ugu horreyn dhalinyarada waxaan odhan lahaa waan ku baraarujin lahaa idaaradda iyo culimada ishraafaysa in horta 2 qaybood ay noqoto, qayb si caama isaga faa'iidaysanaysa iyo qayb aynu la doonayno inay culimo noqdaan oo xasiilo cilmi ah ay sameeyaan. waxaan ku talin lahaa in imtixaan la qaado si loo ogaado dhalinyarada mustawahooda. dadka marka aynu aragno inay si fiican ula qabsanayaan oo cilmigan la gudbinaya lagu tabcayna ay meelaynayaan in laga warhayo loo diyaariyo culimadii gudbin lahaa cilmigan lagu tabcay waqtiga lagu qaatay si hadhowto marka dowladdu ay dhammaato aynu u garanno intee rag cilmigii gudbintiisii iyo tadriiskiisii lagu halaynayo intee halkan joogtaa 30 qofba 20 qofba. dabeetana waxay dhici doontaa khayr Allah disleede sheekh cabdillahina waa idinla joogaan oo runtii aqoontii ay ku soo ururayso isaguna wuu ila ishraafaya imtixaanku idinla eegaya. intaasoo dhan waynu sii dayn karnaa inay culimo noqdaan, khudbada akhriyaan, duruusta gudbiyaan. intaasina waxay u baahan maadooyinka in laga kabo. marka taa waxaan odhan lahaa kol haddii tacabka inta la baxayo raggii culimada aynu diyaarinayna ku talagala. taasi waa maamulka. waxaan baraarujin lahaa oo kale dadka muxsiniinta ilaahay oo xoolaha siiye laftigooda cilmiga baahintiisa iyo tacabka noocan oo kale inay maalkooda kaga qayb galaan
وبريه هورات وحرام كتير حلقات علمي رك بس هو بري كتير محسنين وتجارة شاخي أرضي رأي وصار فريا أيا لو قيبي كتير العب waxaan xusuusanahay hargeysyada Bukhariga sheekhi baa loo akhriyay isbeetiriyadii ayaa ninka casnaa soo kala xuruuqay sheekhi ardaydiiba markaa sheekh waan safrayaa badducee wuxuu jazaaka Allahu khayran intaas uu yasruugay oo inay soo koobantay waa yastaamixu sheekh ducee suu jazaaka Allahu khayran sheekhuna yara adag buu ahaayo sunnaha ku adag oo sheekh Cabdi waxa la oran jiray sheekh Maxamed Herari حكرني علماء وقرنايا أرجوتي قوات كيستي ويسكت قالوا سفر كيف لبعض وسفر كيف قصة مع شكل لبعض مركوب حيوان هذا العقد قيم وصار لبعض من الشيخ إنتي روني إنتي مرة إنت سوا قصة مع شيء إنتي روني كان شاف ترى حملوها كان إسكان علماء البحية عقاد تود إذا كنا تمكن البحية وفق طالب العلم حواليها غير الماشي الشيخ الصوص نفرق ظروف تمام تموين أوسون هاي في علم قديني قال فرشدي سأل جعلنا حلو بنين ذلك فقراء يدل كان والد كود حبايس كان فجأة وانا تباس كريستان إن شاء الله راعيا سكاد أو ذلك لسيد دورو سي أي أصي ولا كلام علم وحنتا راعي لها يوكلين لبدا ما دو iminka laydin soo dhigay dhalinyaradu waa labada maadday ugu baahi badan yihiin waxaan xusuusnahay sideetameeyadii naxwada waxaa laga baran jiray oo dhalinyarada naxwada ay ka baran jireen naxwo waadix ugu badnaa fiqigana lama akhrisan jirin markay nagu arkaan annagoo fiqiga dhegaysanayna waxaa odhan jiray shuqulkii xabta lati shuqulkii xabta ayaa loo yaqaanay in hadda joogo culimada ka mid ah khayralaasiyo dadaal badan ayaa dhegaystay dhowr iyo siddeetankii isagoo muxaadar u jeedinaya markaan imanka soo yaro xusuusiyo uu ku qaslaa wuxuu faligii dambe cilmigii halkaasaa la bariyay oo naskii baa laga jaray oo waxaa lagu soo ururiyey alqaas iyo wailaa falaa marka wailaa falaa macnaheedu waxa weeyaan waa tii minhaaj meesha ku adkaatay marka labadan fani baahi aad u badan baa loo qabaa من عرب وصحيا من عقلنا عرب كانوا صحيا هو مهم حريا وقف الناحية ورجسنا يعني وخطيبة وركوا رسالة استفتاح بلا رسالة هذا إن الحمد لله نحمده هذا العرب هذا غير الناحية كله نحمده ما بلغ يجي يعني وركا واحد فاهم الدونا موقعك من الإعراب يبقى بسكوب بحثي عربي كلام أحمد واحد إلى كلمة آخر كذا أي إلى نساء أبو صحراء صار في قولنا كلمة أول كذا ينحرينا بلاغتنا موقع جملة سهام كأن عسير يسكو حركة جملويك أي يدنا فهم سينا يستصيب هذا القوة صحراء فقه إلى يمي وحقوق صحية عقل يجيب حقوق صحية هي فكر كي فاهم حتى قلت أمور تبعيس إحراش هي حرام الصحيح هي فاسد sida uu kala miisaaminahay iyo arrimaha masaalixda iyo mafaasiinta sida uu kala horumari lahay iyo muhiimnimada ayuu ku barayaa tufuurada iyo dhalinyaranimada iyo degdeg iyo fudaydku ka saaraya waa shayga ku sahlayna fatwooto marka had iyo jeer dhalinyaradu ay soo taagan dadka hortooda ama quraan ha dhigo ama dacwad ha baahiyo ama imaam ha noqdo وإذا أركي عمله هذه الجروح يقول سود دقيقة مركبة سلاشة يقول يقول لك حول الميسر وش خبر تري ما قالنا يوم كل الميسر ده لو حسابه بيسوي ولي بقى نجا قرارة إذا كبرت أجد إمام كأه ورفقك آدو يقانا وقف وهديه قارئ يدك وتكلي تفرقك صلاة نوين آدو كرانية أنا علي وقت أفضل قال يرى كمية آدو كرون أحسن لكن هذا تفرقك آدو في عناية بها ولو تكلي بيسيك على علي صلاتي ويرى خلطي dadkii way ku soo urureen waxay dhahaan islaan nidaamna isagii inuu garawaayo waru ka sii dhaqaajiyay markaa uu iska sii baxay marka intaan caalani waa caamada aan ka caalani wala cilmiga soo diyaarsataa ana waa baraarujin lahaa wala qofni oo runtii lagu fahmi karo quraanka kariimka tafsiirkiisa iyo axaadiithda rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka tafsiirka sharxaysa ama xadiid
waxaad u baahan tahay macluumaadkii minhaajka uu bixinayay inaad ka soo diyaarsan karto kutubta fiqiga waa mudalaaq haddaad akhriyaysa nidaamka jihaadka nidaamka siyaasadda fiqigii baad ka soo diyaarsan karaysa marka labadaa baab waxaa lagu fahmayaa nusuusta sheekhu inuu wax kuu akhriyo oo uu kuu laqimo laqabadiisii ma hayn karaysa waxaa dhici doonta inaad ilowdo laakiin shuraaxda sideed ugala bixi karaysa waa inaad tuulkii sidataa iyo aaladii iyo sarfigii iyo naxwadii aad kagala soo bixi lahayd sharax taasi waxaan kusii dari lahaa sidaa horeba loo sheegay aadaabtu waa muhiim weliba marka aad duruusta bilaabaysaan shuyuukhda haddaad tihiin ku bilaabi waan odhan lahaa casharadii la xidhiidhay aadaabu taalib-ilcilm taasina waxay keenaysaa runtii kalsoonidii waxay keenaysaa dadaalkii kitaabku sida aad u xiisaynaysaan awalkiisa inaad bilowdaan saa u xiisaynaysaan aakhirkiisana waa inaad u xiisaysaan werigii hore waxaan odhan jirnay qofka markuu kitaabku dhexda maraya iskaga taga hebel kitaabku uu ka aafooy mar haddii aanu dhammaysanin nebigu wuxu uhi man humaani laa yashfacaani taalibu cilmin wa taalibu dunya laba kakani ma dhargaan qofka cilmiga akhrisanayaa ma dhargo maalintaad bilowda sidaad u xiisaynayso maalintaad dambaynaysana waa inaad u xiisayso lagugu duceeyaa waan dheereeyey iga raalli ahaada waxaan rajaynayaa insha allahu sidaad ku bilowdeen inaad ku dhammaysaano xalqadda baryahantan waxaa dhacay 100 qof lagu bilaabo ama 200 qof 20 ay ku soo ururto taasina waxay moraal jabinaysaa raggii idiin soo abaabulay iyo ragga idiin gudbinaya khatiib al-Baghdadi oo baabkan aad uga hadlaa wuxuu raximahullah xaqul faa'idati an tushaqa bi ahliha faa'idadii cilmigu wuxuu ku habboon yahay qof xiisaynaya oo jecel oo weeraynaya in loo gudbiyo kii kale waa lagu tabcay waxaan aad u sii adkayn lahaa waxaan baraarujin lahaa markaska imanka la xusay lagu magac daray Sheekh Cali Suufi la bilaabi doona dhismihiisana in laga wada qayb qaato hadday tahay tujaarta ragga dumarka dadka qurba jooga ah markaska iyo xarunta cilmiga ah ee fiqiga iyo caqiidada iyo usuulka iyo asleynkaba lagu qaadan doono dhismihiisa ka qayb qaata sheekuna hormuudka inoogu noqonaya insha allahu tacaala annaguna waan ku faraxsanahay waa idinku ducaynaynaa adduunkuna waa isdaba taagan yahay oo maanta raggani wuu sii socdaa ragga bedelaya iyo dumarka bedelaya waa idinka istiyaariya intaan arrinku idinku soo isagoo culus idin dul imanin waa inaad sii diyaargarowdaan oo isdiyaarisaan ogaadana ammaanadaasi aqoonta ah xujadeedu waxay idinkaga dhacaysaa in ahamigii dacwadda xamaartaan keliya inaynu cilmiga barano oo aynu masaajidka la fadhiisanaynu isugu faarna haada alqalab waxa weeyaan waa inaynu cilmigii la dhaqaaqno qurbaha beledka baadiyaha waa inaad isku daydaan tadriiska iyo mudaarasada inuu idin raaco tatbiiqi oo qof waliba wacdigii iyo waaladii siduu wax u gudbin lahaa aad ku barataan bulshada oo hamigii dacwaddana xambaara oo ha noqonina maktabad la fadhiisata cilmiga aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu